السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay fariintii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu u diray boqorkii faris ee la oran jiray kisra thani ama kisrihii labaad ee xukumi jiray boqortooyadii bershiya ama al-imbratoriya al-farisiya. kadib heshiiskii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu la galay qurayshtii makka sanadkii 6 ee hijriyada oo uu kula heshiiyey 10 sano oo xabad joojin ama dagaal joojin ah, nabigu wuxuu uga faa'iideystay muddadaasi inuu fariimo u diro boqoradii iyo hogaamiyaashii dowladihii ugu muhiimsanaa ee xilligaasi jiray. maanta waxaan soo qaadanaynaa fariintii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu u diray boqorkii bershiya xukumayay 590 ilaa 628 taariikhda miilaadiga. فرينتي نبي قدري عليه الصلاة والسلام وحي أهيد سدة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. هذا إنتان نقول جواب علنتي بقركي كسرى الثاني وكجواب علي فرينتي النبي عليه الصلاة والسلام waxaan eegaynaa marka hore bal fariinta nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa ay xambaarsanayd. nabigu wuxuu ku bilaabay fariintan bisinka, kadibna wuxuu sheegay magaciisa iyo inuu yahay rasuul ilaahay xaggiisa ka yimid, kadibna wuxuu ku qeexay fariintan caqiidada iyo iimaanka iyo wuxuu aaminsan yahay uu ugu yeerayo boqorkaas iyo dadka uu xukumay inay qaataan. haddii uu qaadan waayana in dembigiisa iyo dembiga dadka uu xukumayo oo loo yaqaanay majuus ama dadkii dabka caabudi jiray inuu asagu qaadan doono. fariintaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay saxaabigii la oran jiray cabdullaahi ibnu xudaafata sahmiy. fariintii markay gaartay boqorkii bershiya aad iyo aad ayuu u xanaaqay, kadibna wuxuu jarjaray fariintii nabiga uga timid calayhi salaatu wasalaam asagoo si kibir badan u dhahaya addoon aniga i hoos jooga miyaa magaciisa ka hormarinaya aniga magacayga. wuxuu aad uga xanaaqay in magaciisa laga hormariyay magaca nabiga calayhi salaatu wasalaam. muddo yar kadib waxaa soo laabtay cabdullaahi ibnu xudaafata sahmiy asagoo u keenay qaabkii uga jawaabay boqorkii faris fariintii nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam. markii nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam qaabku u dhaqmay boqorkaasi, wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam mazaqa allaahu mulkah, ama ilaahay ha jarjaro oo ha huriyo boqortooyadiisa. muddo yar kadib boqorkii faris wuxuu fariin u diray waaligiisii xukumayay yaman asagoo amar ku siiyey inuu 2 nin oo ciidamadiisa ka mida u diro nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam si loo maxkamadeeyo. xaakimkii yaman ee raacsanaayay boqortooyada bershiya oo la oran jiray baadaan ayaa wuxuu fuliyey amarkii uga yimid boqorkiisa asagoo 2 nin u diray nabiga calayhi salaatu wasalaam. 2dii nin waxay u geeyeen nabiga fariintii boqorkii bershiya oo weliba ay la socoto handadaad iyo in hadduunan imaanin uusan amarka boqorkaasi qaadan dhibaato weyn ay ku dhicin doonto asaga iyo dadkiisaba. nabigu wuxuu ku yidhi 2dii nin markay fariintii u keeneen berri igu soo laabta. maalintii labaad ayay nabiga ku soo laabteen calayhi salaatu wasalaam, kadibna nabigu wuxuu u sheegay inuu dhintay boqorkii bershiya ee intan u soo dhiibay. nimankii aad ayay u yaabeen ayagoo leh fariin aan anagana soo gaarin oo ka tirsan boqortooyada bershiya iyo muddada oo aad u gaaban awgeed qaabka uu nabigu ku ogaaday dhimashada boqorkii bershiya. nimankii waxay nabiga ku yidhaahdeen ma hubtaa oo warkaasi ma kaa qornaa oo ma u geynaa ninkiina soo diray ee la oran jiray baadaan ee xukumayay yaman. nabigu wuxuu ku yidhi iga qora fariintan, kadibna baadaan waxaad u sheegtaan inuu soo muslimo. hadduu taas aqbalana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ballan qaaday inuu u dhiibi doono ama uu madax uga dhigi doono dhulka uu hadda xukumayo. baadaan markii saraakiishii uu soo diray ee fariintii nabiga u geeyeen aad iyo aad ayuu ula yaabay, isla markaana wuxuu yidhi haddii arrintaasi run noqoto waxaa ballan ah inaan muslimo. laakiin arrinta yaabka badan waxay ahayd inuu habaarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku dhacay ninkii boqorka ahaa ee jarjaray fariintii uu diray. hadalkaas markuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam muddo yar kadib waxaa dilay boqorkii kisra thani wiilkiisa qabaad athani asagoo afgambiyey xukunkii kadib markuu aabihiis toogtay. muddo yar kadib waxaa fariino uga timid baadaan caasimadii bershiya oo la oran jiray tesefon ama almadaa'in oo hadda ku taala dhulka loo yaqaano ciraaq. fariintan waxaa soo diray wiilkii uu dhalay kisra thani qabaad athani asagoo sheegaya inuu xukunkii iyo boqortooyadii asagu la wareegay.
markii fariintu u timid baadaan oo uu hubay inuu dhintay boqorkii oo hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu run noqday, meeshaas ayuu ku muslimay baadaan oo ahaa xaakimkii beershiya u xukumi jiray yaman, isagoo weliba bilaabay inuu asagu diinta faafiyo. kadibna waxaa raacay oo muslimay inta badan dadkii yaman. waxyaabaha la yaab kale ee nabigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah inuu yidhi idaa halaka kisra falaa kisra bacdah wa idaa halaka qaysar falaa qaysara bacdah waladii nafsii biyadihi latunfiqunna kunuusahuma fii sabiili illah. oo macnaheedu yahay hadduu dhinto boqorka xukumaya beershiya ma jiri doono boqor dambe oo dhaxli doona oo ka dambayn doona. sidoo kale hadduu dhinto qaysar oo ahaa boqorkii xukumi jiray al-imberaatoriya albizantiya ma jiri doono boqor dambe ama qaysar dambe oo ka dambayn doona. xoolahooda iyo hantidoodana waxaad ku sadaqayn doontaan fii sabiilillah. kadib dilkii qabaad athani oo u geystay aabihiis iyo afgembigii oo fuliyey beershiya ama faris waxay gashay dagaal sokeeye. kadib waxaa bilowday xilligii abubakar sidiiq radiallahu canhu dagaaladii u dhexeeyey muslimiinta iyo imberaatoriyadii faris, ayadoo inta badan dhulkii ciraaq oo muhiimka u ahaa laga qabsaday. kadibna markii uu xukunka la wareegay cumar ibnu khataab radiallahu canhu waxaa dhacay dagaalkii ugu weynaayay ee dhex mara muslimiinta iyo imberaatoriyadii faris oo loo yaqaano dagaalkii qaadisiya oo dhacay sanadkii 15 ee taariikhda hijriga. muddo yar kadib muslimiintu waxay ku guuleysteen inay jebiyaan imberaatoriyadii faris ayadoo la qabsaday caasimadoodii oo la oran jiray tasafon ama almadaa'in, taariikhdu markay ahayd 16 hijriyada. markii cumar ibnu khataab xukunkiisii sii dhammaanayay waxaa lasoo afjaray guud ahaan al-imberaatoriya alfarisiya. waxay muslimiintu ku guuleysteen in dhammaan dhulkii beershiya ay soo galaan gacanta muslimiinta oo dadkii intooda badan ay qaataan diinta islaamka. haddaba waxyaabo muhiima oon ka fahmayno fariintii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u diray boqorkii faris iyo sidoo kale boqorro fara badan oo fariimo u diray waxaa ka mid ah inuu nebigu isticmaali jiray luuqad diblomaasiyadeed oo uu ixtiraami jiray dadka uu la hadlayo xataa hadday dagaal kula jiraan. sidoo kale waxyaabaha ka muuqda fariimahan waxaa ka mid ah fariinta uu dirayo inuu ku dhisayey qolo walba waxyaabaha ay aaminsan yihiin. tusaale haddaan isbarbar dhigno fariinta uu u diray nebiga calayhi salaatu wasalaam boqorkii imberaatoriya bizantiya iyo boqorkii faris, waxaad dareemaysaa inuu u dhexeeyo farqi yar. uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam yu'tika allahu ajraka maratayn ama ajirkaaga 2 mar ayaa ilaahay ku siin doonaa ayuu ku leeyahay boqorkii xukumayay al-imberaatoriya albizantiya. maxaa yeelay boqortooyada imberaatoriya albizantiya waxay ahaayeen ahlulkitaab, sidaa daraaddeedna haba qaldanaata hadday doontay waxay aaminsanaayeen kitaab ilaahay soo dejiyo islaamka ka horreeyey, inkastoo ay kitaabkii bedeleen caqiidadiina ay wax badan qalloociyeen. laakiin sidaas ay tahay islaamku wuxuu u yaqaanaa kirishtaanka iyo yuhuudda ahlu kitaab wayna ka duwan yihiin ummadaha kale ee aan aaminsanayn kirishtaanka iyo yuhuudda. hadalka boqorka faris ee yasmadu ka muuqato waxaad ka dareemaysaa heerka ay joogeen iyo sidai u liiteen carabtu islaamka ka hor, ayadoo ummadaha ku xeeran ay carabta u arkayeen islaamka ka hor inay yihiin dad aad iyo aad u liita oo ayaga hoos jooga. sidaa daraaddeedna ayna suuragal ahayn shakhsiyaad ayaga ka mid ah inay fariimo u diraan ama si la siman ay ula hadlaan boqoradooda. halkaas waxaa kaaga caddaanaya dhab ahaanshaha hadalka laga sheego cumar ibnu khataab radiallahu canhu oo uu leeyahay naxnu qowmun acazana allahu bilislaam faida ibtaqayna alcizata fi gayri alislaam adallana allah. waxaan nahay dad ilaahay islaamka ku sharfay ama uu kor ugu qaaday, haddaan sharaf ka raadino meelaan islaamka ahayn ilaahay wuuna dulaynayaa. waana xaqiiqo cad oo jirta. carabta markaad fiirisid taariikhdii hore oo dhan islaamka ka hor iyo xataa markii dambe ay ku mashquuleen wax la yidhaahdo qowmiyad iyo carab ayaana la yidhaahdaa oo islaamkii iska dhaafeen, waxaad dareemaysaa in la dul degay, la adkaaday, la duleystay oo dusha laga fuulay. haddii ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayi doonaa fariimihii kale ee muhiimka ahaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u diray boqoradii iyo boqortooyooyinkii xilligiisii jiray inaan soo qaadano oo idiin soo bandhigno. haddaad barnaamijkan ka heshay ama barnaamijka soo socda aad danaynaysid waxaan kaa codsanayaa inaad barnaamijkan sii faafiso ood la wadaagto saaxiibada, sidoo kale inaad like iyo subscribe nagu taageerto. aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.